بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. halkan waa xarunta la talinta dadka iyo horumarinta shaqada Dr. Safiin walaashay la hadlaysaa waa Dr. Safiin maanta waxaan rabaa cashirkan soo jeedinaya wuxuu ku saabsan yahay dadka walaalaha ah ama dadka sida badanba Soomaalida ah oo wada dhashay maantay waxay sida badanba ku kala tageen qabiil iyo qabyaalad iyo qashin iyo qurub. marka barnaamijkay wuxuu ku saabsan yahay sidiisaba taranka dadkii tarmi lahaa waxaa la dhex dhigay wax badan oo fool xun oo qabiil ah. waagi hore tama la aqoon Soomaali qof walba iska guursan jiray, qofku yahay waa la guursan jiray. Soomaaliya gabdhaha waa isbaran jireen, wiilashu waa isbaran jireen, duurka isku baran jireen, magaalo isku baran jireen, meel kasta isku baran jireen. sidaas awgeed guurku wuxuu ahaa guur waasac ah oo qof kasta oo Soomaaliya ay isbaran jireen oo isguursan jireen. maanta bal kuwii halkaas ahaa iska daayay waxa isguursan karin xataa labadii wada dhalatay ama ilmo adeerta ahayd ama isku dhaweyd ama istaqaana ama isku famil hoysan isguursanin sababtoo ah dadkii waxaa alla dhex dhigay wax la yiraahdo wax aan kalsooni fiican ahayn, jiraha ahaato oo cudur ha ahaato. gabdhihii iyo wiilashii qof walba muu doonayo guur waxbaa si ka ah. marka halkaas waxaa ku yaraanaya taranka. waxaan leeyahay marka yaa rabaa inay wax ka qabtaan dadkaas. waxaan rabaa xagga qabiilka dadka waxa wax ka qaban kara oo xagga qabiilka ah in dadkii qabyaalad iska dhaafaan, gabadhii iyo wiil iska helaana isguursadaan. taas sidaasaan ugu baaqayaa. waxaan kaloo halkan baaq kale uga dirahayaa war meeshaan waxaad arkaysaa 30 jir 40 jir aan weligeed guursan ama wiilalaha ama maaragtay gabdha aan guursanaynin. taasna waxaa keenay kalsooni la'aan wadanka iyo maaragtay ka dhacday maaragtay colaadihii iyo dhibaatooyinkii ka dhacay dalka. kalsooni la'aan baad arkaysaa xagga qarash yaraha ahaato xagga maaragtay ma garanayo waxyaalaha aan laftaygu aan si fiican uga soo baaraan digino la yaabanahay. waxa arkaysaa 30 jir naag raadinayo dhibaataysan, 30 jir nin raadinayso dhibaataysan haddana nin aan heli karin sababtoo ah waa dhowrsanaysaa. aad bay u dhowrsanayaan, way is ilaalinayaan. waxay leeyihiin hadda nin waa rabi lahaa laakiin aawa ninkii. marka dhib badan baa jira. waxaa kaloo jira dad iska jirjiran oo haddii ilaahay kuu reeyahay ayaguna maaragtay in gacanta la qabto oo ehelka ay dad ku daraan. hadday maaragtay indhool yihiin, hadday dhagool yihiin, hadday sariir yihiin in la isku daro oo meeshaas khayr laga raadsado ayaguna astaahila. waxaa kaloo jira gabdho maaragtay 6 iyo 7 dhalo agoomo haysta ama garoobaha la furay, odayaal ayaguna naagii mar hore ka tageen oo naagii fureen oo iska xishoonaya, dadka aad u xishoonaya ah oo aan naag raadin karin oo maanta maaragtay dhibaato badnaatay. in sidii guurkii aad u cuslaaday aad buu cuslaaday. waxaana keenay inta badanba filmaantan iyo balaayada la fiirsanaya keenaysa. waliba ha u badnaato maaragtay waxyaalahan TikTok iyo Facebook iyo ha u badnaato. qof walba qof kale ma aaminayo ilaa waxyaalo badan oo qashin ku dhex jiro arkaya. marka waxaan dhihi lahaa Soomaaliyay anagoo abaara iyo dhibaato iyo rafaad iyo maaragtay dagaalo iyo qurun soo marnay iyo qabiil soo dhex marnay haddana bal waxaan leenahay bal dib inta iskugu noqono. dhalinyaradu waxaan leeyahay meel kastay joogaan dhalinyaraad tihiin, Soomaalina waa tihiin. iska faa'iidaysta isguursada. waxaan arkaya gabar la yiraahdo walaashay Nimco Ilaahay khayr badan ha siiyo oo qadka iskaga dareysa dhalinyartii Soomaaliyeed ama dadkii Soomaaliyeed haday waayeel yihiin haday yariin iskaga dareysa oo maaragtay barnaamij u furtay. waxaan leeyahay Nimco Allah khayr ku siiyo laakiin hal iska ilaali, hal baan kuula dardaarmayaa adigana yaa laba muslina maan wax kala isku darin. gaalada iyo muslimka kala ilaali, gabdhaha gaalada iyo wiilasha muslimka ah iyo isku soo dhuuman. adinkuna wax ogaado iska ilaalsha dadkaas maaragtay isku soo dhuuman. midaas baan aan walaashay Nimcana aan kula dardaarmayaa. dadka walaalaha ah oo ilmaha jirjiran dhalay ama kuwa dhagaha la ama kuwa maaragtay indhaha la ama kuwa nooc kastaba ah curyaano sariiraha saarana
wareedhahay ehel baa tihiin gabadha wiilka abti dhalay wiilka adeer dhalay wiilka waxaas ku dardaro ilmaha isku dardara Soomaali siday u badato isku dardara kuwa jiisaha jirta oo soo dhaawacmay oo dhibaataysan oo sariir iska saaran dagaaladii iyo dhibaato dhan wax ku soo gaareen oo maartay maanta marka qofku markuu 40 iyo 50 iyo gaaro waxa dhow yaa qaadaya yaa u dad ah dadka hal la isku daro wixii ilaahay risqiga asaga waasaca siinaya yaa hal la isku dardaro dadka guurka hal la badiyo ilaahay baa ka dardaarmay rasuulkiisa ka dardaarmay in guurka la badiyo khayr u yahay laakiin Soomaaliya maanta way sii yaraanaysaa haday dagaaladaas ku jirto maalin kasta islaynayso ummadii kuwii caafimaad qabana ay isguursaneenin kuwii jirana iyo wax fiirinayo kuwii walna iyo kuwii maaragtay qabanayo isku darayo aysan jirin oo markaas waxay meesha noqonaysaa fisqi iyo kufsi iyo balaayo iyo qof walba dabadiisa inuu fiirsho ayaa meesha ka soo baxaya marka waxaan leeyahay intaas laga hortago dadkaas laga hortago dadka hal la isku dardaro gabdhaha iyo wiilasha hal la isku dardaro meelaha cidada ah maartay dhibaatooyinka ku haystaan qof walba dhahayo waa wareeda ku haayo hal la isku daro oo cid walba ilmahaaga iyo ehelka inta qaban kartid qabo inta isku dari kartid isku dar Soomaalidana waxaan leeyahay gabdhaha iyo wiilalba de Soomaali baa tihiin anagana Soomaali baa badisaan baa rabnaaye naga daayqa qabiilka iyo qashinkee gabadh iyo wiil kasto de sharfo gabdhaha hal la sharfo waxa kale oo dhibaatada keenay wiilashii dhalinyarta ahayd oo rag xun noqday oo gabdhihii sharaftii ka qaaday oo gabdhihii maaragtay ay gabar walba saas inta u fiirsay iska duqowday meel iskaga laabatay oo gabar walba isku aamini karin oo ilaaha risqiga ku siiye gabadha waxaan ku irisi sharaf la guurso ilaahay bari u shaqo tag maaragtay wax khayr la ka dhal wax khayr la ka raadso ha uga tagin ilmaha ha ku dhibaateyn marka insha Allah warka waa badiyay waxaan leeyahay booskaas ha laga faa'iideysto anigana waxaan leeyahay ajir iyo xasanad Allah iga siiyo aad baa idin salaamayaa assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh